axmed yaasiin kun nin nool ma ahay gudoomiye adigaa nagu macaashiyey ninkanu inuu meelihiisa iska jooga ahayd awalow weli wax muun ahay ninkaa cirkiin annagii buuna nagu soo dhacay hadde waxaan anagu rabnay uun waxaa weeyaan anagu meesha markaan nimid waxaan isku dayay inaan bal dad badan wejiyo badan kusoo daro ma garatay sax yani nin dhalinyaro ahaa waa nin aan ku hanweynaabu ahaa waxaa nin walaalkaa weye xogay ku-xigeen baan ka dhigay gudoomiye ku-xigeen baan inaan ka dhigo ilaa aakhirkiisa duura urka inuu qabsado yani waa dadkaa inaad dhisato dhalinyaro abuurato wey mogta aada weyn marka ani wanaag ba iga hayda waxaa weya isma lahayn muxuu ahaa yaasiin ba heerka gaaraya hadda dacwada baasbooradii ummadda ay lahayd oo idil isagoo gacanta ku hayn jiray guddiga doorashooyinka ahaa muxuu ahaa la keenay intuu cabdi u dhiibay baa loo wada dhiibay dowladda Itoobiya intaas ay caawin lahaa baasbooradii lasoo dhigay heerka gaaray inuu heerka gaaro wax walbo kale dadku way iskhilaafi karaan wax walbo dhici karaa mugta ilaa jaajusnimo halkeeda gaaro soo dhibaato ma هذا هو باسبوري من dadku laabo yu diiwaan geliyay baasaboorradii asaga shirkii Eritrea muxuu ahaa shirweynihii lagu qabanayay waa Eritrea kii u dambeeyey asaga xogeynta hayo oo dokumentiga loo soo dirayay viisada waan garanayaa marka dadaan weliba Ethiopia imaan baasaboorrada meesha lagu arkay qof kaloo hayna mala asaga baa hayay allahu akbar iyo bentu ilaa 14 xubnooda قارين هذا قبل إسكين عبادة هذا عند الأوركا يعني حلبان هن ودك الجوين وكانوا إسكيج سو تعفيه وفرد عرفت حيران وحبابي حتى لو كوجي صار مو كده ريح هو واحد ضعف كان أصل بي تين أبشرني ودك اللي جالس عيدي ما له يبان شيء حنقول قريلي نوال بدر دلوي ده دعنا لوج عرض موقع ذا كذا خير أبسم تربى أو نرفع أو تجعلهم هاي noloshinu bal ka warramaan ku walla waxa la yiri inaadan waligii waba dadkii wadanka naga xoolaha iyo dhabay wada qaleen biyo dhibaatada ay umad u geystaan wax laga shaqeyn kara ma marka reerkan horta waa reer baas oo alla dunya Allah ku riyo mid kale hadda waxay sameeyeen nimankii dibadda hadda yar ilay socdo in shaqado Sweden ka yimid oo maalintii ragii awrkan yani isla soconaya oo shacabka Ismaaniil la gabadhii iigeeyay lagu daldalay qori gabdhihii lagu dilay ahaa ayaan isla soconay waxay ku dheewaa kuwa badan baa la soo hadlay oo ingiriiska meelaha jooga waxa weeyaan ninkani dadka beenta u sheegay iyo waxa uu subaxayo iyo dhibaatada halkuu gaarsiiyey horta wax laga sheekayn kara ma wayna la soo hadlay way ninkaasi aad u la soo xalay maanta ma waxaad noqotay garabkii maaday bada wixii hore anaga garab maaday waxa iyo maaday waa ninkii ururka asaasay waxa weeye waa ninkii aqliga makarnaysa mabda'an ba ninkii keenay buu ahaa shalay toole ilaahay markiisa hadduu qaldana maxaa shalay toole loo diidi waayo ma maanta ilaahay markiisa waxa weeyaan marka annaga waxa aan noola imanina buu yidhi waxa weeyaan nin walba waxa weeyaan taala imaada waddanka waxyaala arka marka horta waxyaalo badan buu ninkan uu sameeyey oo beena midda kale hadda wuxuu yidhi isagaaba naga jaajosano jaajosnimada wax meel aanaan gaarin buu gaaray waa sida ay nimankaasu noo sheegeen waxaa la yidhi maadayba isaga ka jaajusan maxana maadaybaaba naga jaajusan buudo dhinaca jadbaba kor ka maray marka waxyaalo badan bay shubayaan oo iska baashiyo oo maartay waxyaabaha ay fidinayaan waxaa weeye cagjar baa wuxuu rabaa in dowladda federaalka heshiiska aan galay intaan la colowin asagoo nooga soka marmaray sax waa run marka waxaa weeyaan abigaasaan la hadlaynay anigu cid kale ma jaajusaynay dowlad baan heshiis la galnay welina maana coloobin marka ma cayninood calaaqaad baa naga dhexeeya asaga maagay oo isaga laftiisa col lamaan nahayn ma garat waana way isaga ina maagay oo waxaa la damcay ee hadda dagaalka laga bilaabay ee sheekada dadka lagu kicay waxay ahayd cabdiraxmaan abigu hoosta ka galo isu dhiibay qadeeji buu ka tegey aniga waxaa weeye cabdiraxmaan cajir hoosta ka galo abi haayo halkaa marka aysan u dhaafin halka madaxa cajir addoonkiisa ha noqdo absolute ilaahay kaama dhigo anaga cajir waa nin gudoomiye tuulo anaga dowladda Itoobiya heshiis la galay amaan dagaalana amaan heshiin anaga naga dhexaysaa isagaa naga heshiis labaana gelin sax beena ma maalinku noogiin Eritrea waxaan ku leeyahay adigu nooma seexaysid anaga waa waan diinin wax noo seexo sax marka nin yani waxaa weeyaan anaga haddaan heshiis la galin Itoobiya sayna Itoobiya ma waan heshiinaynaa ama waan culoobaynaa sababaan abi u caayay maxay tahay marka ma dhacayso maxaan u caayaynaa caybada naguma leh ninku mar hadduu cayb kugu lahayn ما دخلنا هو دحية أبي وحبي مياه نكيس دول جزء كوتوي وإحنا قاعد دحية أنا تذكر بعلوس منها ما قرأت. أبسط وصار كحوي. مركب حلقة اللي صار جيد خلاص ما فوله
in la yidhaahdo cabdiraxmaan in la igu diraado ninka ana waxaan ku idhi waranu haddaan dagaal ka soo baxay ummaddan waan dejiye ninka asaga wax dhibaato kuma qabo wallahi kolley waa imtixaanada nala marinayo kolley wax badan baa nalaga goynaya laakiin insha allah dadka waa laga qaban kan waa lahuba in laga qaban insha allah waqti fog ma joogaya hadduu joogana dib weyn buu keensan doonaa maaragtay gundaba ilaahay kaa naga qabto iyo wixii cadow oo dhan aad baan kuu salaamayaa